waa qisadii la magac baxday rajadii luntay qaybteedii labaad waxay noo maraysay ayadoo taladu igu cayrtay gabadhiina niyadda ugu qaboojiyey inay adkaysato in yar maalmo kadib waxaa mar kale isoo wacay lambar aanan aqoon markii aan qabtana waxaa si halhaleela ii soo gaaray codkeedii quruxda badnaa ee aan jeclaa nabdaadin iyo waraysi kadib waxay ii sheegtay ilaa iyo markii in marna la garaacayay ayadoo lagu qasbayo ninkii lagana doonayo rabitaan iyo inay oggolaato ninkaas waxay i tiri haddii aad jeceshahay kaale caawooyi imaad oo meeshaan igala baxso waxay ii sii raacisay hal asbuuc oo aan kala maqneen ma seexan hurdo madaxaygana culays weyn ayaa saaran ee dhibta ila qaybso waxaan idhi aad ayaan kuu jeclahay wax kastana waa kuu mudan karaa dhib kastana waan u bareeri karaa mar haddii aan ku helayo balse dadkaaga weli kama raja dhigine intaanan isla baxsan ma og tahay haddaan maanta ku wato inaanan cago meel ku tegi karin oo walaaladaa ka mid yihiin urur hubaysan haddii gacanta ay nagu dhigaanna qorshe kasta oo aan lahayn meeshaas soo kuma dhammaan doono intaas markaan idhi ayay tiri waa runtaa waan isadkayn doonaa inta adiga wax kasta kaa soo go'ayaan wuxuu wakhtigu isguro maalintuna maalin ii dhiibto anigu waxaa igu dhacay bohlyow jacayl waxaan ka jiifan waayey bidhaanta jaahii qurxanaa ee aan ku ildoogsan jiray waxaan go'aansaday si aan hal mar xitaa u arko inaan derbiga guriga ka fiiriyo casirgaabkii anoo iska dhigaya qof iska socda ayaan inta derbiga isla simay oo dhagax weyn oo meesha yil ku istaagay ayaan eegay mar qura waxay indhahii igu qabteen iyadoo marya dhaqaysa oo weliba wax hagooga ama wax garbasaar ah aan qabin indhaha markaan ka qaaday ayaan ka degay dhagaxii oo iska baxay alla fiicneed ah inaan iska daayo oo aanan arag habeenkaas hurdo ma aanan ladin oo inanta guudkeedii iyo qurux wanaaggeedii ayaan ka sii qaaday jacayl xaddhaaf nolosha wax aan sameeyo ayaan aqoon la'ahay waan yaabay mar ayaan iska fikirayaa oo waxaan ku fikirayaa talow keliyaha iyo indhaha meel lagu iibsho haddaad heli lahayd maanta waad iibsan lahayd jirkaaga qayb ka mid a maalmo kadib habeen ayay gabadhii waxay farriin iigu soo qortay lambarkeedii aan aqaanay waxayna ii sheegtay inay quus taagan tahay oo dadkaanu sina uga tegayn marka maxaan sameeyaa ayay i tiri aadna waa u ooyeysay cabbaar ayuu hadalkii igu dhegay waxaana ka xanuunsaday sida gabadhaas qalbigeeda cadaadiska loo saaray inta ilma iga imaatay ayaan waxaan idhi maxay ku leeyihiin markaas ayay tiri waxaa laygu leeyahay far duco iyo far habaar mid dooro marka adiga ayaan kaa war sugaayey waxaan idhi farta ducada qaado oo ninkaas iska guurso aniguna nafta waxaan ku dayi doonaa samir markaas ayay igu tiri ma adiga ayaa sidaas igula caawa lambarkana waa igu damisay habeenkaas ayaana la mahriyey isla habeenkaas ayaana iigu dambaysay lambarkeeda inaan waco maanta oo laga joogo 10 sano gobolkii aan joogay waxaan go'aansaday inaan indhaxumadiisa iskaga tago ma eegan karo meel nin ku guursanayo gabadhan jeclaaye wakhtigaas ayaan iskaga soo tegey oo magaalada muqdisho imaaday gabadhii maanta waa hooyo carruur leh allah u barakeeye balse qisadan waxaa laga baran karaa jeebkaagu haddii uu miran yahay oo aadan waxba haysan qofna naftaada ha ku xirin oo ha u qaadan inaad adigu iska leedahay haddii kale waad waalan doontaa qisadeennii rajadii luntay halkaas ayaan uga haraynaa muuqaalka leegareeya channelkana noo soo subscribe gareeya saaxiibayaal si aan meel fiican ugu yar waa mahadsantiin